السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waan salaamayaa Soomaalida meel kastay joogaan gaar ahaan Soomaalida dalka Sweden magacaygu waa Garyan Cabdiqaadir Axmed oo ka soo hadlaya dalka Sweden maanta bishu way tahay 24 December sanadka 2024 hadda bayaaqaa waxaan rabaa dadka inaan la socodsiiyo dhowaan inaan maaragtay si faahfaahsan uga hadli doono hadduu eegmo isbedeladii sanadkan oo dhan 2024 ay ku howlanaayeen baarlamaanka dalka Sweden iyo wasiirka socdaalka nin mudrada magaciisa loo yaqaano Johan Forsell ee ku howlanaayeen hadda maxaa u dhaqan galay maxaa dhaqan galin isbedelka goorma bilaaban doonaa xagoos ka bilaaban doonaa si goobgoos ayaan idinku sheegayaa hadda siyaasha maalmaha soo socdo ayaan si tafsiila aan uga hadli doonaa hadduu eegin intii sanadkan uu socday waxaa maaragtay aad iyo aad loogu howlanaa in wax laga bedelo shuruucda lagu helo waxa loo yaqaano dalku joogista ama Uppehållstillstånd iyo shuruucda lagu heli jiray ama lagu helo waxa loo yaqaano dhalashada Swediska svenska medborgarskap marka isbedeladaas ayaa hadda qaarkood soo ay dhammaaday waxaana ugu horeeyo tusaale ahaan isbedelka lagu sameeyey xeerka jinsiyadaha Sweden gaar ahaan jinsiyadda Sweden oo loogu talagalay dadka da'da yar waxaa laga wadaa dadka 18 sano ka yar inta u dhexaysa 15 ilaa 18 sano taasoo lagu soo kordhiyey waxa loo yaqaano Totalskrabet oo ah in lala xisaabtamo dhalinyarada berigi hore lama xisaabtami jirin hadda waa lala xisaabtamayaa 15 jir laga bilaabo waa la xukumi karaa sharci lagu qaban karaa hadda marka haddii 15 jir laga bilaabo ilaa 18 jir inta u dhexayso intuuna gaarin 18 jir inta u dhexayso berigi hore markii dhalashada Swedishka ay codsadaan lalama xisaabtami jirin oo si aad iyo aad maaragtay looma dabageli jirin laakiin hadda 1 Oktoobar laga bilaabo bishan sanadkan 1 Oktoobar bisha 1 Oktoobar sanadkan hadda aan ku jirno dabayaaqada 2024 waxaa dhaqan galay sharciga cusbaa oo lagu tixgelin lagu maaragtay loogu talagalay in lagula xisaabtamo dhalinyarada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلام يا صومالية مeel kasta joogtaan gaar ahaan waxaan salaan dirayaa Soomaalida degan dalka Sweden halkaas oo aniga laftigii aan deganahay magacayguna waa Garyan Cabdiqaadir Axmed waxaan rabaa inaan maanta halkan aan ka sheego isla markaana maalmaha soo socda hadduu eegmo aan si qoto dheer aan uga hadli doonaa isbedeladii baryahan lagu howlanaa ilaa sanadkan intuu socdo dhan sanadka 2024 oo hadda bayaaqaa isbedeladaasoo oo garwadeen ay ka ahaayeen wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha oo dalka Sweden oo hadda magaciisa yahay Johan Forsell isla markaana ka tirsan xisbiga dimuqraadka oo soo jeediyey isbedeladaasoo khuseeya sida lagu qaato sharci soo gareeda dalka waxaa loo yaqaano visa sida loo helo ruqsadda dalku joogidda waxaa loo yaqaano habka Swedishka Uppehållstillstånd iyo sida loo qaato dhalashada Swedishka kadib markii dalka qofka ilaa muddo cayiman oo sharci cayimay oo joogay isla markaana codsi u gudbay hadda waxaa dhaqan galay sanadkan intuu socday laga bilaabo
isbedel cusubna ah bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay hadda sanadka 2024 aan ku jirno. isbedelkii ugu horreeyay baarlamaanku ansixiyey isla markaana ay ansixiyeen guddiga shuruucda oo loo yaqaan laha borodhadka, kuwaasoo mar kastaba baara sharciga aan maaragtay loo wadin ilaa aan ansixinin in haddii uu ka hor imaanayo dastuurka dalku yaal iyo haddii kale. marka qaybtii ugu horreysay hadda soo caddaatay oo la ansixiyey wuxuu dhaqan galay qaybtaa ay dhaqan gashay 1 Oktoobar hadda lasoo dhaafay sanadka 2024. waxayna qusaysaa isbedelka wuxuu quseeyaa sharciga jinsiyadda Sweden ama sida loo qaato jinsiyadda Sweden, kaasoo si gooni ah usii taabanaya ama quseeya dhalinyarada. dadka da'da yar ayaa ku qoran xeerka. marka dadka da'da yar sida sharciga Sweden uu dhigayo waa intuu dhexayso 15 sano ilaa iyo 18 sano bilo ka hor intayna gaarin. marka berigii hore dhalinyarada 15 sano laga bilaabo marka ama 15 sano 16 sano badi waxyaabaha dembiyada qaarkood ee galaan looma tixraaci jirin, mararka qaarkoodna aad uma saameyn jirin dhalashada Swedishka ay qaadanayaan. laakiinse hadda sharcigu wuu isbedelay. sharciga dembiyada ayaga lagu qaadaya ayaa isbedelay. waxaa jiro waxa loo yaqaano habka shuruucda log for by head oo ilmaha in maxkamadda la geyn karo hadda 16 jir 15 jir wixii ka dambeeya wixii horeeyo. berigii hore saamay ahayn meelaha ilmaha dhalinyarada lagu xanaaneeya la geyn jiray hadday dembi galaan, isla markaana ma saameyn jirin dhalashada Swedishka ay qaadanayaan haddii maaragtay markaa marka hadda laga bilaabo 15 jir mid waa la geyn karaa, waa la xukumi karaa, wayna saameyn kartaa dhalashada Swedishka. oo dembigaas waa loo tixraacayaa wuxuuna keenayaa in loo diidi karo ama in sanado dib u dhici karaan iyo wixii lamid ah. sharcigaasna wuxuu dhaqan galay hadda 1 bishii Oktoobar hadda lasoo dhaafay sanadkan hadda aan ku jirno dabayaaqada 2024. mid lagu kordhiyey sidii horey aan u sheegay ayaa waxay ahayd tusaale ahaan waan akhrinayaa iyadoo Swedish. Den 1 Oktober ändras reglerna för svenskt medborgarskap för unga personer, för utsatta personer och för nordiska medborgare. marka hadda waxaan qaadanaynaa tusaale ahaan aan meesha kasii wadayaa tan ku saabsan dhalinyarada bis kastoo horay oo soo gashay hadda wixii aan ka hadlay dadka jinsiyadaha dalalka Nordiga haysto ayagana hoos baan ka sheegi doonaa ama gadaal baan ka sheegi doonaa. För unga personer införs krav på skötsamhet. waxaa lagu daray sharciga hadda 1 Oktoobar laga bilaabo sanadkan 2024 sidii hore aan u sheegay in caruurta ama dhalinyarada oo aad u qaangaarin markay codsanayaan inay qaataan dhalashada Swedishka si fiican loola xisaabtami doono wixii ku saabsan sharci jebin ama astaan mudane. hase yeeshee waxaa haddana 1 Oktoobar isbedelay sharciga jinsiyadaha ee lagu dhaqi jiray dadka qabay jinsiyadaha dalalka Nordiga waqooyiga Yurub sida Iceland, Finland, Denmark iyo Norway. ayagana waan sheegi doonaa. För personer i en utsatt situation stärker skyddet av
svensk medborgarskapet. Waxaa kaloo jirta oo ayadana la bedelay sharcigii awal maaragtay dadka codsan jiray dhalashada Swedish inay qaataan hase yeeshee ku nuuxnuuxsan jiray inay dalkan u yimaadeen ama dhalashada Swedish inay qaataan ay rabaan sababtan ay tahay in dhalashadii hore ay kasoo tageen inay haysan karin ayagoo naftooda badbaadinaya. Marka meeshaas waxaa lagu soo daray waxa loo yaqaano utsatthet ama utsatt situation oo lagu jiri jirin oo qofka hadda uu xigan karo haddii uu ka yimid ama uu ka baxayo jinsiyad oo asaga leeyahay. haddii jinsiyaddan aad sii haysatid nabadgelyadaada halis bay gelaysaa ayuu yeelanayda. marka ayaga xuquuqdooda nabadgelyo ayaa lagu sii adkeeyey meesha. halka sidaan hore u sheegay dhalinyarada dalkan degan oo raba inay dhalashada Swedish qaataan laga bilaabo 16 jir ilaa inta waxay ka horeen gaarin 18 jir lagu sii adkeeyey inay qaanuunka ixtiraamaan oo haddii ay jibiyaan lala xisaabtami doono sidii waaweyn loola xisaabtami doono. midda saddexaad oo haddaay aan yala taabtay oo ayada isbeddelka jinsiyada ayaa waxay tahay haddii dadka ay ka yimaadeen ama qofkii ka yimaado Finland, Norway, Denmark iyo Iceland ay rabaan inay dhalashada Swedish qaataan ayadana isbeddel baa ku yimid. isbeddelkan hadda idin sheegaya waa isbeddel oo ah tusaale ahaan iska maamul ama masiir maamuleed ama waxa loo yaqaano process ama procedure. marka waa idin akhriyaa dhegeysta. Ändringarna får nordiska medborgare handlar om att anmälan om medborgarskap fortsättningen ska göras hos Migrationsverket istället för Länsstyrelsen. ayaga sharcigii lagu siinayay inta sanad dalkii joogaan wixii meesha bay taagan tahay. laakiinse berigii hore haddii aad tahay Danish, haddii aad tahay Norwegian, haddii aad tahay Finnish, haddii aad tahay Icelander, markii dhalashada Swedishka aad ku wareegaysid Migrationsverket ma dhiibi jirin berigii hore. waxaa dhiibi jiray xafiiska gobolka hadba qofka gobolka uu degan yahay waxaa loo yaqaano Länsstyrelsen. ayadana waa la bedelay sharciga hadda laga bilaabo qofkii Norwegian ah isla markaa Danish ah ama Finnish ah ama Icelander ah dhalashada Swedishka wuxuu ka codsanayaa Migrationsverket ee kama codsanayo mana laga siinayo xafiiska gobolka degan yahay sidii berigii hore. bedelada marka waxaa xigo oo hadda ay laftooda soo dhammaanayo isbedelo kale oo ku saabsan badiyaaba sidii dadka dalka looga saari lahaa, sida maaragtay dembiyada qaarkood oo ay sabab noqon kari lahayd in maaragtay dadka dalka baxa la yidhaahdo, iyo tusaale ahaan dhalashada Swedishka oo la adkeeyey sidii lagu qaadan lahaa iyo sida dalka joogista loo adkeeyey ayadana. shuruucda qaarkood waxay dhaqan galayaan bishii Juun, bishii 6 isa soo socotay haddii ay ku idmo. kuwo kalena waxay dhaqan galayaan 1 January sanadka dhowaan oranaya hadduu idmo. marka isbedelada oo qofka marka laga qaadayo dalka joogista dalkan xataa haddii uu haysto mid permanent ah waxa loo yaqaano ama joogta ah oo berigii hore aan jiri jirin oo hadda ay noqonayso in maaragtay suurtagal ay noqoto isla markaana la sharciyey ayaa tusaale u soo qaadanaya. qof baa dembi gelay wuxuu haystay iqaamo abadiyan waxa loo yaqaano ama dalka joogis oo maaragtay permanent ay haystay. qofka dembi uu galay dembiga ha yaraado ha weynaado awal maxkamadaha way xukumin jireen
markay xukumaanna xabsi bay ku xukumi jireen ama ilaalin ama ganaax. xitaa mararka qaarkood haddii dembigu cuslaa marka iqaamada lagama lalaaban jirin haddayna ahayn dil iyo wixii lamida. ileen dilka markaa dalka uu xabsiga xabsidaayinka markuu dhamaysto ayaa dalka baxa la dhihi jiray, ayaa dalka laga saari jiray. laakiinse hadda waxbaa lagu soo kordhiyey. haddii tusaale ahaan sababtana waxa weeye magashadiis beerka ama ninka wasiirka Johan Forshell moderaat hay-adda socdaalka ayaa wuxuu tusaale usoo qaatay oo yidhi waxaa jirta hadda ka hor sharciyo oo qofka keenaya dalka laga saara maadaama dembi uu galay oo dadka xaakimka uu iloobay ama oo si fiican u feerinin ama uu isku taxallujinin oo xabsi qofka ku xukumay. xabsi markuu soo dhamaystana qofka xaq uu lahaa dalka inuu sii joogo. hadda migration beerka wasiirkeeda iyo guddiga shuruucda ee baarlamaanka waxay ku guuleysteen in lagu soo daro arrin kale oo u fasaxayo in migration beerka ay noqon bis maaragtay hay-ad oo bureaucratic ah oo arrintii loogu talagalay iska shaqayso ayadana loo fasaxo in haddii taas ay dhacdo oo kale ay xaq u leedahay in qofka marka la soo daayo automatically dalka baxa ay tiraahdo ay ku xukun dalka inay ka baxo ayadana maxkamad loo aadin, ayadoo aanayna tusaale ahaan migration beerka in maxkamaddii qofkan xukuntay ayna aad u raacin xukunkiisa islamarkaana ay ayada awood u leedahay qofka asagoo la xukumay oo xabsigii aan u dhammaan inay ka daba dirto warqad geyso sharciga waa kaa qaadnay ama marka lasoo daayay sharciga waa kaa qaadnay. berigii hore ma jiri jirin. marka hadda migration beerka waxaa la siiyey waxaa loo yaqaanaa double role, maaragtay in laba maaragtay in maaragtay ay samayn karto ayadoo xeerkeedii hore oo maamulka ay meesha sii wadanayso iyo in hadda kadib ay fara la gali karto xukun oo maxkamadeed oo maxkamadaha Sweden ay xukumeen. hase yeeshee aanu dhicin sidii migration beerka ay u rabtay. markaa migration beerka ay hadda haysto gacan dheer ay lasoo bixi karto ay dhihi karto tusaale ahaan kan waa la xukumay maxkamadda mayna hadlin in laga qaado sharci joogista dalka uu ku joogay. laakiinse hadda annaga awood baan u leenahay inaan sameyno sidaa ayaan ula noqonay. abiilna ma jiraan ma jiro. taas waa mid. waxaa kaloo jiro oo hadda soo socdo oo laga munaaqashooday la faburay haddii suurtagal ay tahay dad halkan ku dhashay oo waalidkood dal kale ay ka yimaadeen oo ilmaha halkan ku dhashay dhalasho isku sheeqdaan ama dhalinyaro halkan ku dhalatay haddii dembiyo culus ay galaan sida dil oo kale in laga qaadi karo dhalashada Swedishka oo lagu xawili karo dhalashadii waalidkood ay lahaayeen markay dalka imaanayeen. sidaa aawadeed ayadana maaragtay taas ay maaragtay u dhowdahay in dhinac loo rido hadday suurtagal tahay. midda xadidaysaa waxay tahay dastuurka Sweden. marka ugu horeyso dastuurka in la bedelo weeye oo ma sahnaan jirin berigii hore in qof dhalashada Swedishka laga qaado si kastaba ha noqotee. marka keliya laga qaadi kara ayaa way ahaan jirtay berigii hore haddii xaalad dagaal dalka uu galo oo qofka dhalashada Swedishka qabay islamarkaana abka inuu dalkan u dhalan ahaa hadduu kasoo jeesto dhinaca cadowga waa laga qaadi karay. marka waxa loo yaqaana kontrabandira. laakiinse hadda haddii
qof uu dilo haddii qof loo taag waayo dembiye kale oo gala afduub iyo xildhibaan iyo waxyaabo kale marka waxaa la rabaa in qofka dhalashada laga qaado oo meeshii ay waarkis yimaadeen dhalasheeda maaragtay lagu xawiyo wuxuu noqday arrinkaas wuxuu noqday arrin aad iyo aad looga munaaqashooday hase yeeshee weligeed waa la isku ogaa waxay sababtay inay sabab kartana waa la ogaa in maaragtay dastuurka la bedelo haddana waa la bedelayaa dastuurka si maaragtay ay u noqoto dastuuri wax qofkaas lagu sameeyey dastuurka Sweden ilaa muddo lama bedelin markii la bedelay waxaa weeye toddobaadmeeyadii barmeeyadii dhawaad markii boqorka oo ay u dhalatay gabadh intaas yar baa laga bedelay qaybta dastuurka Sweden wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood qaybta ugu horeysa waa sida dalkan loo maamulo loo yaqaano regeringsförklaringen qaybta kalena waxaa waaye qaybta labaadna waa xorriyadaha shakhsiga ku nool dalkan ama jinsiyadiisa leh sida xorriyadda diinta oo dhan raaco sidoo kale cibaadadiisu guto xorriyadda tacbiirka xorriyadda la xisaabtanka dadka maaragtay dalka maamulo iyo lamida iyo tan saddexaad oo ah qaybta saddexaad oo gooni u taagan waa habka loo maamulo reer boqorka oo Sweden ee ku saabsan dhaxaltooyada haddii boqorka oo wax maanta oo dhinto tusaale ama geeriyooda yaa dhaxlaya marka waxaa loo yaqaano succession inheritance beriga oo boqorka hadda jiro tobanka dastuurkii ku horreeyay wuxuu dhigayaa bis wiil inuu dhaxli karo taajka boqortooyada Sweden maadaama markii xaas uu yeeshay ilmihii ugu horreeyay gabadh ay noqotay asaga codsaday marka dastuurka dib loogu laabo si Victoria maanta haddii aabaheed uu geeriyoodo ay maaragtay maadaama nabigii ugu horreeyay intaas baa laga bedelay inta kale waxaa waaye qarniga 18aad ilaa iyo hadda meel laga bedelana dastuurka Sweden ayada laftigeeda dhibaato baa imaan karto dadka jinsiyada laga noqonayo waayo waa in la waafajiyaa xeerka oo jimciyadda ka dhexayso the Charter of the United Nations Organization aniga saan qabo waayo qodob waxaa jiro dowladaha adduunka oo dhan markay UN galayaan ay seexaan oo ah in dalkooda qof ku nool jinsiyad la'aan uu noqon karo taa marka waxaa loo yaqaanaa nullität ama nololeed afka laatiinka micnaheeda waxaa weeye nulla oo kii laatiinka oo ah bilaa kiis waxaa jiro lagu qabsaday dowladda Kuwait waxaa jira dad Kuwaitiina oo teendooyin ku dhashay oo Kuwait awalba iska saxaabeed gobolka ka tirsan bay ahaan jirtay berigii hore marka dad dadweynaha soo deganaa laakiin hal isbitaal ku yaalay halka isbitaalka markii oo Kuwait ay gobonimo qaatay ay dhaheen Kuwaitiina Ciraaq ka tirsan afartii oo isbitaalkaas yar ku dhalatay bis ayaa la sirgareeyay dadkii kale oo toonay ku noolaa badweynteeda lama sirgareyn marka ilaa iyo mar dhexe dadkaas waxaa loo yaqaana biduun iga raacdo biduun marka meesha ay baasaboor Kuwaitka ay wataan ay ku qoran tahay jinsiyadda nationality ay ku qoran tahay marka af carabi waxaa ku qoranaa biduun oo ah afka laatiinka nulla afsiisku wuxuu noqonayaa nolol marka taa waxaa dhibaata imaanayso haddii ay suurtagal noqoto oo jimciyadda oo dhexaysa safrayla soo geli doontaa marka qodobkaas nololeed ama nullität awal dastuurka Sweden kuma oolin jirin Sweden maaragtay way aqoonsatay berigii hore
in qof bini aadan oo dalkeeda ku nool oona noqon karin bilaa jinsiyad. taas waxay noqonaysaa arrin yaab leh. waqtiyada soo socda ayaan ka hadli doonaa hadduu ay idmo, laakiinse waxaan rabaa dadka hadda inaan u sheego in ilmahooda, gaar ahaan dadka soomaalida af soomaaliga ku hadlo, in qofkii leh ilmo 15 sano jiro, 18 sano kusii socdo, intuu dhexayso ay ilmahooda ka ilaaliyaan inay fara la galaan waxyaaba xanibi doono, una diidi doono, ama ka mamnuuci doono ilaa ay sanado inay dhalashada Swedish-ka ay qaataan. taas waxay dhaqangeli doontaa bisha Juun ee sanadkan cusub ee soo socda. isbedelo kaloo tiro badanne way ku soo daba jiraan oo maaragtay they are in the pipeline. marka ayagana way soo cadaan doonaan maray yimaadaanba. marka isbedelada oo qaanuuniga wixii ku saabsan migrationsrättsliga områdena sida tan jinsiyadda oo Swedish sida loo qaato, medborgarskapet, svensk medborgarskap, iyo sida wixii ku saabsan iqaamad iyo dad keenis iyo wixii la mida. deetan område, laakiinse labadoodaba waa migrationsrättsliga område. isbedelada tiro badan baa soo socdo, marka waa in aynan dayalsan oo aad la socotaan oo aad u korbishaan, isla markaana aad iska ilaalisaan wixii dhibaato idin keenayo, hadday noqoto qanuuniyan, hadday noqoto xuquuqda dalkan aad ku leedihiin. kuwa kale oo ayagana hadda soo cadaaday oo ku saabsan dadka dadkooda loo keenayo, dadka maaragtay cusboonaysiisanayo waxaa loo yaqaano uppehållstillståndiga ama dalruqsada daljoogista. maalmaha soo socda ayaan ka hadli doonaa hadduu ay idmo. intaa ayaan kusoo goynanaya caawa. waa garyaqaan cabdiqaadir oo marka idin leh habeen wanaagsan iyo sanad cusub oo wacan hadduu ay idmo, oo soomaalida meel kasta ay joogaan isu keeno oona nabad dhex dhiga. aad baad u mahadsantihiin.